بسم الله الرحمن الرحيم وعشرة امتحانها كيمستري في somali ku bixi jiray aan ugu talagalnay ardayda Soomaaliyeed tutorial scan waxa soo jeedinaya caawa anigu ah Maxamuud Cabdirashiid Muuse waxaan ka soo jeedinaynaa Iqra Education Program casharadeen hore saan uga soo hadalnay waxaan uga soo hadalnay waxa la yiraahdo maatarka iyo energy maatarkii baan waxaan u kala saarnay cashirkeen hore liquid oo dareere ah solid oo adka ah iyo gas oo neef ah inta kaliya kala saaritaanka maatarka ama waxa la yiraahdo walaxdu inta kaliya kuma koobna qaab kale oo loo kala saarna way jiraan walaxdii kala saaritaankeedii waxa kale oo loo kala saaraa laba qaab labada qaab oo kala ah pure substance iyo mixture pure substance iyo mixture waxaan ku sharaxi doonaa cashirkeenan pure substance and mixtures pure substances definite and constant composition waxa weeye pure substances ku waa wax qeexan iyo composition waxa ka kooban yahay oo aan wax isbedel lahayn aan isbedel sameeyeen tusaale ahaan a bag of salt it's all the same stuff hadii aanu weel ama bac ama jawaan aan dhahno cusbo ku jirto means jawaanka cusbada ku jirto hal wax buu ka samaysan yahay waa cusbo kaliya hoos kor iyo waxa weeyaan dhexba hadii la tago waa hal wax uu ka kooban yahay haddaan u nimaano mixture waa wax isku jir waa physical combination of the pure substance kan ka hadlaynay oo la isku daray iyagoo isku jira weeye tusaale haddaan soo qaadno hal weel ama bac ama jawaan midba ka doontid dheh oo ay ku wada jiraan cusbo sokor iyo ciid oo la isku qasay that means macnaheedu isku jir tusaale tani hadda waxay noqon kartaa isku jirku wuxuu noqon karaa fiiri weelkaasi qaybta sare waxa laga yaabaa inay ka kooban tahay 20% sokor 40% milix 40% ka soo haro kala ciid hoos way ka duwan tahay dhexdu macnaheedu waxa percentage kan ka hadlayno uu ka sii duwan yahay waxa laga yaabaa dhexda 80% inay sokor tahay 10% ay cusbo tahay 10% ay tahay ciid marka mixture-ku waxa ay ka kooban tahay waa pure substances la isku daray waa physical combination of pure substance halka hadii wili aanu si fiican idinku clear gareyno pure substances ku waa wax aan isbedelayn weelka ay ku jiraan xagga sare hoose dhexe meesha aad tagtidba percentage-ka walaxdaas ay ka kooban tahay waa sin wax farqiya oo u dhaxeeya malahan okay halkan dib u soo laabo pure substanceski waanu qeexnay pure substanceski wuxuu u kala baxayaa labo element iyo compound elementigu waxa weeyaan waxa uu ka koobanaha waxaasi walaxda ay ka kooban tahay same atom markii hal wax ay ka kooban tahay atoms isku mid ah waxa weeyaan element laakiin marka ay ka kooban yihiin different atoms waxa loogu yeeraa compound let us see ayadoo qeexan aan aragno so waxa la everything in the world composed of teeny little things called atoms wax waliba oo waxa la yiraahdo adduunkan saaran waxay ka kooban yihiin little teeny things called atom atoma la isu geeyay atomku waa ilmo aragti wax aad u yar ishu aysan qaban karin marka atoms la isu geeyay ayay wax waliba ka kooban yihiin so halkan maxaa la yiri anytime you have a material mar walba aad haysatid walax ama shay that's made up kaasoo laga sameeyay of only one type of atom hal nooc oo atom ah walax ay ka samaysan tahay hal nooc oo atom ah is called waxa loogu yeeraa an element waa loogu yeeraa at the same thing when something markii walax ka samaysan tahay ama wax laga sameeyay
is made up walaxdaasoo laga sameeyey different atoms atoma kala duwan. It's called waxa loogu yeeraa a compound. So I think it's clear. walaxda hadday ka samaysan tahay atom isku mid ah waxa loogu yeeraa element. waayo wax walba waxay ka samaysan yihiin atoma la isu geeyey. haddii atomiskaasi ay kala duwan yihiinna waxa loogu yeeraa compound. Okay, tusaale si wixii ay idinku kala cadaadaan. Gold dahabka kala tusaale u soo qaadanay element. Gold is an element. Gold is an element made up of bunch of gold atoms. waxa laga sameeyey isukeen atomo dahab ah. There is nothing else in gold except little gold atoms. dahabku waxa uu ka kooban yahay keli ah dahab. wax kale oo aan dahab ahayn atama aan dahab ahayn kama koobna. haddii hadda dahabku aanu jajabino oo aan yaryareenno burburino kadibna lagu fiirsho microscope waxa kuu soo baxaya microscope-ka uu ku tusaya keli ah waxa weeyaan atoms dahab ah. halkan haddaan hoos soo aadno water biyaha tusaalaha labaad. biyuhu is not an element kama koobna ma ahan element because of why is element u ahayn. It's made up waxa ay ka samaysan tahay hydrogen and oxygen or two different atoms. So because of it is two different atoms waxa weeyaan ma ahan element. halka dahabku uu ka samaysan yahay only. sababta why haddii biyaha aan breakdown ku samayno then aan ku eegno microscope waxaad arki kartaa two atoms kuwaasoo kala ah hydrogen iyo oxygen. So labadani waxaan idinku soo qaadnay example ahaan qofka inuu ku fahmo. Okay, haddaan dib u laabano mixtures-ka iyo homogeneous iyo heterogeneous-ka insha Allah waxaan ku sharaxi doonaa casharkayaga soo socda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.